Soomaalidii hore ee xoolalayda ahayd xilliyada ugu badan ee ay wax urin jireen waxay ahayd marka ay xoolaha dhex joogaan kaligoodna ay yihiin weliba xilliyada ay dhan walba dabeecaddu ka dhammaystiran tahay marka roobku hooro dhulku saac bixiyo rahu sanaadayo geedgaab iyo geeddheerba ubax iyo biqlaan ubaxa laftiisu uu foodhi kala jaad ah ku maaweeliyo jaalkiisa ayaa qalbigoodu muusoon jiray kadibna ay godlan jireen sidii roob dayreed muddaba la dhowrayey marar badan waxay curin jireen suugaan ay qayb bay'ada ka mid ah ugu mahadcelinayaan wanaagyo ay kala kulmeen awgii allaha u raxmaday abwaan hadraawi oo mar la hadlayey insaan ilaaway wixii loo abuuray ayaa mariyey maanse ay ka mid ahayd adduunka ragow markaalay abuurtiiyo heega daawo awoodaha saaran daawo falaadkiiyo alaabadeeda ilaah samiihiisa daawo udbaha iyo teedka daawo aloolka ku jeeran daawo hagoogta aslaysa daawo cadceedda ifaysa daawo ilwaadkiiyo nuurka daawo abaabulcaddaanta daawo umuuraha toosay daawo dayaxa ishinbuuxsankiisa aashaa socodkiisa daawo irjiidh iyo ololka daawo rugaa afagaalladiisa laxaha iyo ururka daawo aleelaha guudka daawo habeenka amuuman daawo shareerkiiyo aqalladiisa haddana ashqaraaradiisa bal suurayso ashqaraarkaasuu sawirayay abwaanku habeen dayaxa loo kala garan waayey 14aad iyo 15aad oo ay ku kulmeen laxaha iyo ururku cirku caadaysan yahay carradu cidlo tahay reen iyo ruuxna kula joogin wada sheekaysiga kula dhex mara duunkaaga iyo dabeecadda waxaan filayaa inaanad ka gayoonayn waa kii maxamed saleebaan tubeecna allaha u raxmadee mar uu sawirayey qurux gabadhi leedahay kuna suuraynayey quruxda xilliyada roobka dabeecaddu leedahay iyo sida ay dadka duunkooda u dooxdo lahaa sida geed cal iyo buur dheer carrahoodan ku yaallo cokanoo irmaanoo dhirta kale kacaynoo oobaan casuus lihi laamaha iscelisoo ubaxuna tin iyo cidhib kaga dhigay cabbaadhiyiyo dusha sare caleentii cidhibka isla gaadheen biyo wada cabteen oo haddaan lay cadaabayn rabbi ii cadhoonayn dadku inuu ku caashaqo madow iyo caddaankuba ku calayma saaraan sow kuma canaanteen mar kale ayaa waxa ay cali saleebaan bide iyo xasan aadan samatar heesay isugu tageen inugu jalbeebinayaan waxa keliya ee gabadh qaryad ah lagu maamuusi karo bilicdeeda inay tahay labahaynta dabeecadda waxayna yidhaahdeen sida meel barwaaqo ah oo buuro dhaadheer webi baalmaraayo barbarkana daruuruhu kaga beegan yihiinoo waaguna beryaayo berdihii magooliyo ubaxii gadaal baxay balanbaalis qalima leh had ballaan ku booddaad adna ii bidhaantaa caawoo dhan ka gayoon mayno haddii aynu nidhaahno aynu sheegno suugaanta ay soomaalidu ka curisay dabeecadda taasna waa xidhiidhka ka dhexeeya ee ay u qirayaan wixii ay u gashay haddii aad doonto iskaba dheh way igu abaalgudayeen waa runtaayoo waxa keliya ee ay ugu abaalgudi karaan ayaa ah inay ku tilmaamaan sifo iyo calaamadna uga dhigaan wixii ay ugu jeclaayeen ee markaas u muuqan karayey dabeecaddu waa noole wax badan ina siiya haayo waa runtaayoo dhirta oo ka mid ah waata aynu ka helno ogsajiinta jidhkeenna quruxdaas u yeeshay sidaasi la mid ah allaweyne waxa uu marar badan ina farayaa inaynu ku dhaygagno dabeecadda qaabka loo qurxiyey iyo abuurihii ka dambeeyey waxanoo qurux ah inaannu dhayal iyo micno darro u abuurin